baaritaanka 24 saacadood ee u dambeysay ay samaysay wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu xaqiijiyay 28 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah dhamaantood waa Somaliland 22 qof oo rag ah iyo waliba 6 qofna waa dumar ayaa lagu yiri da'da bukaanada cusub waxay u dhaxaysaa 10 jir ilaa 19 jir 20 jir ilaa 29 jir 30 jir ilaa 39 jir iyo waliba 40 jir ilaa 49 jir 50 jir ilaa 59 iyo waliba 70 ilaa 97 waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye oo faahfaahinaya 24 saacadood u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 75 qof 75 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof marka numberkeennii hore ama tiradeennii hore waxa ku soo biiray 28 qof taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay ilaa maanta 332 qof tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood u dambeeyay 3 qof ayay ahayd iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 43 qof 24 saacadood u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday 1 qof taasoo iyaduna wadarta guud xanuunkan u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof ilaahay naxariistii jannaha siiye dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah da'dooduna waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir 3 qof ayaa noqonaya 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya 40 ilaa 49 jir waxa noqonaya 3 qof 50 ilaa 59 jir waa 4 qof 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof sida maalin walba inoo cad dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir 20 ilaa 40 jir dadka had iyo jeer ilaahay ha u naxariistay xanuunka u dhimanayna da'doodu waxay u dhaxaysaa ama ay u badan tahay markaynu eegno da'da dambe ee wixii 60 ka dambeeya dhinaca kale markaynu eegno hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku wali sideedii ayay u